asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh kulanti wacan oo wanaagsan idin lahaantiinba kuna soo dhowaada w3 tag waxaan ka raali gelinayaa videoga inaan xoogaa la daahay mashquul aniga igu yimid daraadiis insha allah raalliha laga noqdo videogan wuxuu ku saabsan yahay html inaynu ku dhisno websitekeena ugu horreeyey ama your first website inaad html ku dhisto websiteka html oo keliya waa lagu dhisi karaa websiteyadii hore o dhan dhammaantood waxay ku dhisnaayeen html marka insha allah html baynu ku dhisi doonaa our first website marka si aanu isula jaan qaadno waxyaaba waxaa jira aad u baahan doonto oo inaga caawin doona inaynu websitekeena html ku dhisno marka maxaad u baahan tahay the first thing aad u baahan tahay waxa weeye waxaad u baahan tahay browser number one browser baad u baahan tahay browser waa wada garanaysaan waa google oo kale firefox internet explorer iyo wixii la mid ah marka maadaama google lagu caansaya isaga aynu tusaale ahaan ku koobsanno browserku waa google oo kale number one marka I really recommend you inaa google chrome isticmaashaan koorsadan intaan wadana waxaan isticmaali doonaa google chrome sababtuna waxay tahay isaga xagga developmentka ugu fiican uguna fudud ugu dhaqso badan number two waxaad u baahan tahay code editor ama text editor qofkii garanaya waa u fududay fahankeeda koorsada waxaan ugu talagalay inay noqoto html bilow ah oo qof xitaa aan wax hore u bilownayn inuu fahmi karo marka number two waxaanu leeyahay waxaad u baahan tahay code editor ama text editor code editorku waa programka ama softwareka ama appka aynu u isticmaali doono inaynu ku sameyno websitekeena waa meesha lagu qoro htmlka ama codeka ee websiteka lagu sameeyo waa anigoo ku idhaahda buugu muxuu yahay marka jawaabtaad waxa weye buugu waa waraaqo wax lagu qoro marka waa meesha websitekeena aynu ku qorayno websiteka aynu ku samaynayno labadaas waad u baahantay marka code editoradu way badan yihiin waxaa ka mid a note plus plus oo kombyuterada windowska ku shaqeeya badankooda ay ku yimaadaan windows 10 ayaan u malaynaya laga bilaabo waxaa kaloo jira mid la yidhahdo sublime waxaa jira vs code waxaa jira atom way badan yihiin nasiib wanaag badankoodu waa free marka feel free to use kaa doontaad isticmaali kartaa koorsadan htmlka anigu waxaan isticmaali doonaa sublime waa code editorka la yidhahda sublime that's my personal choice marka next step labadaa mar haddaad ogaatay inaad u baahan tahay u diyaar garow labadaaba inaad hesho oo computerkaaga ay diyaar ku noqdaan haddii aad go'aansato oo aan isku dooq noqono oo aad go'aansato inaad sublime isticmaasho code editorka sublime la yidhaahdo waxaan u malaynaya hadda inaanu free ahayn still waa trial markaad cabaar isticmaasho dhowr minute waxaa laga yaaba inuu bob up yar kuu soo saaro message oo kuleey iibso waa iska xidhi kartaa marka haddii aad go'aansato inaad sublime isticmaasho oo aan isku dooq noqono tallaabada ku xigta ayaan qaadi doonaa waxa weeye inaan ku tuso sida computerka loogu shubo haddii ay jiraan dadka qaar aan garanayn oo sida computerka aad ugu install garanayso marka let's do it waxaan tegaynaa google inoo fur then waxaad ku qoraysaa sublime text waa sublime text text then search dheh ama enter marka optionka kuugu horeeya kuu soo baxa ku dhufo ee sublime text u horeyso then pagekan ku keenaya oo pagekii sublime meeshaad ka download garan lahayd waxaad tagtaa meesha ay ku qoran tahay download for windows waxaad tegaysaa halka ay ku qoran tahay download for windows waa bartaas marka haddii aad isticmaalayso mac ama kombyuterada aan ku shaqayn nidaamka windowska insha allah kuwa kale isticmaal sida vs code ama atom ama note plus plus laakiin kan waa windows oo keliya ku shaqeeya sublime marka halkaa ku dhufo ay ku qorantay download for windows markaad keligeleyso download wuxuu ku geynayaa filekii u download gareeyey the left bottom cornerka geeska ugu hooseeya ee bidixda halkanuu keenayaa filekii waa geeskaas marka laba siyood baynu u furi karnaa inaad toos u kala garayso oo halka aad ka furto iyo inaad tagto drop down arrowga yar ee geeska ka xiga waa drop down menuga yar ee geeska ka xiga marka wuxuu kuu soo saarayaa meesha file ku yaalo haddaad ku dhufato show in folder wuxuu ku geenayaa meesha file ku yaalo
laakiin waxaan samayn karnaa toos haddaad ugu dhufato wuu kuu furmayaa ku dhufo marka then waxaad tidhaahdaa next kan aan inaga xidho pagekan next haddana next dheh waxaad click garaynaysaa oo tick saartaa optionka yar add to explorer context menu insha allah ha ilaawan optionkaana click garee then next dheh then install then finish marka markuu dhammeeyo that means programkii aanu isticmaal lahayn websitekeena inaynu ku dhisnaa wuxuu ku jiraa telefoonkaaga waa laga yaabaa desktopka inuu kuu soo dhigo haddii desktopka aanu kuu soo dhigin waxaad tagtaa halka hoose ee search barka task barka ku yaala si aad u ogaato inuu ku jiray in kale waxaad tegaysaa hoostaas haddii aad magaciisa ku qorto sub calaamadaasuu leeyahay uu kuu soo saaraya markiiba marka that means wuxuu ku jiraa computerkaaga waad ku install garaysa kadib markaanu ku install garayno waxaanu desktopkeena ku samaynaynaa folder let us create a folder on the desktop folderkaaga tag meel empty oo madhan right click see then waxaad tagtaa new halka new ay ku qoran tahay waa arki kartaan baan u malaynayaa sorry right click see new then waxaad tegaysaa folder marka desktopkaaga markuu folderka ku samaysmo magac u bixi waxaad doontaad u bixin kartaa waxaan odhan karnaa html site ama waxaad odhan kartaa my first website oo kale waxaad doonta u bixi marka ujeeddada aan ka leenahay folderkan waxa weeye desktopkaaga waxaa laga yaaba waxyaaba badan inay yaalaan kaygoo kale messiba ahaa xooga videogan aan u clean gareeyey marka si faylasha websitekeena aynu ku samaynaynaa aan inoogaga dhex qasmin kuwa kale ee desktopka ku yaala folderkan wuxuu inaga caawinayaa inuu inoo nidaamiyo tusaale ahaan shaqaalaha guryaha dhisoo kale markay shaqada ay soo galaan shiftigooda ama dawaamkooda oo ay dhammaystaan markay shaqada kasii baxayaan tooliskooda sida minshaartii dubbihii ama buruskii musbaaradii tooliskooda dhan hal qol bay ku istorgarayaan oo berri markay soo noqdaan ay kala soo baxaan marka sidaas si lamid ah folderkani wuxuu inaga caawinayaa inuu in faylasheena uu inoo nidaamiyo marka folderka double click oo fur gudihiisa haddana right click waxaad tagtaa hoos new meeshay ku qorantay and then menuga kale rightka ka soo bixi doona waxaad tagtaa text documentku markuu kuu samaysmo ka masax magacii qoraalkii ku qornayo oo dhan waxaad ku qortaa index oo ah index index.html marka waa inaad hubisaha ilaawin .html ina u dambayso intaa markaad samayso meel cidlaa kili gara oo empty ah wuxuu ku weydiinaya if you change the file extension the file might become unusable fileka extensionkiisa haddaad bedesho oo ah inta dhotka xaggan ka xigta waxaa laga yaabaa inaanu shaqayn laakiin waan ognay inuu shaqayna markaa yes dheh haddii aad arki kartaan filekeenni markiiba wuxuu isu bedelay google chrome calaamadiisii taa micnaheedu waxa weeye browserka defaultka ii ah aniga computerkeyga waa google chrome marka haddii adiga aanu google chrome default ku ahayn insha allah isku day inaad default ka dhigto ama ii soo qorsi aan kuugu sheegay xalka waxaa kaloo dhici karta extensionka html u dambaysa inaan kuu soo saari waayo taas hadday dhacdana ii soo sheeg insha allah filekan aynu ku dhex samaynay folderka micnihiisa asagana aan wax yar idin fahansiiyo waxaa weeye waa seedkii ugu horreeyey ee websitekeena waa adoo beer abuuraya oo kale oo seedkii ugu horreeyey dhigay filekani waa seedkii websitekeena aynu ka abuuraynay ama waa xididkii websitekeena waa root of our website waa seedkii ugu horreeyey ee websitekeena halkan dhignay marka wax walba aynu samayno filekan ay ku samaysmayaan tusaale kale websitekeena imankuu diyaarsan yahay haddii aan furo wuxuu inoogu furmaya sida websiteyada caadiga oo kale double click waad aragtaan waa websitekeena waa diyaar sida websiteyada aad u furto kale kuugu furmaya laakiin waa empty wuu maran yahay waa buug maran oo kale oo u baahan wax lagu qoro marka waxaanu gudagelaynaa sidii aan wax ugu qori lahayn insha allah markaas soo xidh folderkana iska xidh waxaanu tegaynaa garoonkii aanu ku ciyaarinay codeka ama garoonkii kubaddeena programkeena aanu furano oo ahaa sublime ama haddii aad kuwa kala download garaysay ku dhufo haddii sublime aad dooratay wuxuu ku keenayaa page sidan oo kale ah waa pagekan uu maran asna waxaanu samaynaynaa markaa filekii ama seedkii aanu soo abqaalay ayaynu soo furanaynaa waxaad tagtaa markaa
file tag and then open file. waxaad tegaysaa markaa meeshii folderku inoo yaala oo desktopka ahayd. then folderkeena magaciisa waad xasuusataa wuxuu ahaa html oo kaas halkaa yaala. folderkii fur, filekii inoo yaalay aynu ku tilmaamay inuu seedkii websitekeena yahay ku dhufo oo open dheh. filekii markaanu furno waad arki kartaa magacii baa inoo soo baxay aynu u bixino oo ah index.html. halkaa markaan marayno waxaa inoogu xiga inaynu sharaxno ama inaynu baranno html wuxuu leeyahay structure iyo qaab dhismeed dhammaan dadku wada yaqaanaan developerskii. maaha waxaad kolba meel ka raadinayso, waa in yaroo la yaqaano, waa structure gaar ayuu leeyahay ama wax loo yaqaano boilerplate. tusaale ahaan boilerplate oo kale ama html structurekeeda waxaa laga wadaa masalan haddii aad mechanic tahay ama gaarigaaga aad bolt ka furayso, bool waliba number buu leeyahay, baanad gaara furta. marka bool baad furaysaa, boolkaa waxaad taqaanaa baanada furta. waxaa soo qaadatay boxkii tooliska iyo baanadu kaaga buuxan, iyagoo dhan uma wada baahnid, waa taqaanaa baanada numberkeeda kuu furay boolkaas. marka taasunbaad la soo baxaysaa. marka sidaas si lamid ah html markaad website ku samaynayso waxay leedahay baanadaasoo kale, waa in yaroo la yaqaano iyo structure gaaray leedahay. marka su-aashu waxay tahay sidaan ku heli karaa html structurekeeda aan ku ogaan karaa. maadaama ay kugu cusubtay waxaa fiican marka hore inaad dusha ka qabato ood xifdido si aad u ogaato siday isugu xigxigto, inkastaanay muhiim ahayn. also programkan aynu isticmaalayno asagaa ku siinaya inta hore markaad qorto, inta kale asagaa kugu daraya. aan samayno. marka waxaad samaynaysaa, waxaad taabataa shifty iyo buttonka angle bracketka caynkaas u eg haddaad taabato. waxa weeye buttonkaasi wuxuu ka xigaa keyboardkaaga letterka m ayuu ka xigaa right-ka. waxaad isku qabanaysaa isaga iyo shift. markaad buttonka numberkaa qorto angle bracket baa la yidhaha ama lesson ama grader, waxaad taabanaysaa ht oo far yaryara ht. inta kale asagaa kuugu daraya. marka waa artaa hoosta inay ku qorantay html. markaa taaba enter ama kaligaree, inta kaleo dhan asaa ku siinaya. marka html-ka lagu sheegayo ee websiteka lagu dhisaa iyada dhanba waa intaa yar. you see how simple it is. dushaad ka qaban kartaa inkastaanay khasab ahayn ama aanay daruur ahayn, laakiin waxaan kugula talinayaa recommend you inaad dusha ka qabato ood barato ood garan karta siday isugu xigxigaan in case ay wax qaldamaan. marka html waa intan. structureka html maadaamaad aragtay waxaynu sharaxi doonaa mid waliba wuxuu qabto iyo mid waliba macnaha uu halkan u fadhiyo. way yartahay, ha ka baqan. mid walbana waan isticmaali doonaa, markaasaad si fiican usii fahmi doontaa. marka waxaan rabaa wax yar inaan ka horeysiyo intaanan structurekan sharaxin oo ah videoga horena wax yar baynu kusoo taabanay oo ah html. haddii lagu weydiiyo lagu dhaca what is html maxay tahay, waa laga yaabaa dadka qaar inay garanayaan oo markiiba ay yidhahdeen is hypertext markup language. laakiin haddii lagu sii yidhaha what is hypertext and what is markup language, waxaa laga yaabaa inaad sharaxi karin. dad badan oo sharaxayana ma arag. marka insha allah aynu isku dayno marka hore in aynu sharaxno html maxay tahay. html waa 4 kelmadood, waa ht iyo ml, waa hypertext oo labada hore ah iyo labada dambe oo ah markup language. marka aan isweydiino hypertext maxay tahay, waa hta iyo tda. hypertext waxa weeye waa documents are interconnected by hyperlinks which are typically activated by a mouse click. waxa weeye waa qoraallo badan oo hal meel la isugu keenay. qoraallo badan oo inta laisku jaangareeyey, sawirraa ku jiri kara, video xitaa ku jiri kara, inta hal meel la isugu geeyey loo sameeyey link waa baran doontaa insha allah markaynu gelino. marka waa qoraallo badan inta hal meel la isugu keenay link loo sameeyey. waxaana kaa xiga qofka readerka ee websiteka akhrisanaya, waxaa ka xiga inuu mouse click sameeyo oo mouseka ku click gareeyo, ama inuu press gareeyo oo uu taabto haddii uu telefoon isticmaalayo. sababta loo sameeyey htdan waxay tahay, waxaad ogaataa websiteku wax kala ma aha, waa buuggii iyo waraaqihii aynu qoran jirnay oo ka soo baxa oo loo bedelay electronic oo kombiyuutarada shaashadahooda ka muuqda iyo telefoonada iyo electronic deviceska. technologygu wixii hore la haystun bay horumarisaa. marka waa waraaqihii iyo buuggeenna caadiga ahaa ayuunbaa laga dhigay electronic. marka tusaale ahaan markaad buugga akhrido bage aad akhrido, bageka kale markaad rabto inaad u gudubto,
maxaad samaysaa gacmahagaad isticmaashaa oo pagekaad soo rogtaa laakiin websiteku maadaama aanu buugi ahayn halkii pageka laga soo rogayay waxa ugu jirta ht oo ah hypertext oo ah link markaad ku dhufato usually marka waad garanaysaan baan u malaya websiteyada markaad gasho meelaha linkiga markaad ku dhufato wuxuu kuu furaya ku geenaya page kale ama meel kale ama website kale marka taasaa uga dhigan macnihii pagekii la soo rogaya oo kale okay inta haddaynu fahnay labada hore labada dambe waxa weeye waa ml maxaa laga wadaa waa markup language mark luqadaha waa garanaysa waa calaamadin ama qalinka wax lagu calaamadiyo marker baa la yidhaahdaa marka markup language waa luqadii wax calaamadinaysay ee wax kala calaamadinaysay ama wax kala xidhxidhaysay haddaad u fiirsato html qaab dhismeedkeeda inta qoraalada ah ma inta kaleo dhan waa waxa weeye waa bracketska yar calaamadaha yar bracketska yaryar iminka masalan head title oo kale titleka oo kale wuxuu ku bilaabmaa labada calaamadood ee yarar waxaan ku dhammaadaa labada calaamadood iyo forward slashkaas labada hore waxaa la yidhaahdaa opening tag waa calaamadihii ay wax ku bilaamayeen saddexdan dambe israacsanna waxaa la yidhahaa closing tag marka waa muhiim markupka marka waxaa laga wadaa luuqadii wax kala calaamadinaysay calaamaduhu waa kuwana laga wadaa tagiskaas waayo websiteka haddaan saa loo kala calaamadin wuxuu noqon lahaa wax isdhex daadsan oo isdhex yaacsan tusaale ahaan waraaqiix caadiga ah aynu qori jirnay marka aad dhammayso sentence macno samaynaya maxaa la samayn jiray waxaa la qori jiray full stop oo macnaheedu yahay halkaa hadal macno samaynaya ku dhammaaday hadal cusub baa bilaamaya marka websiteka full stopkii waxaa ugu jirta calaamadahan that's why loogu magacaabay luuqadii wax kala calaamadinaysay ama wax kala xidhxidhaysay waana muhiim xasuusnow opening tag oo ah labada hore israacsan iyo closing tag oo ah saddexdan dambe israacsan haddii aad ka tagto codekaagii waxba kuuma suurtagelayaan ama waxaa laga yaaba websitekaagi inaan waxba ka soo bixin marka intaas waxaan rabay inaad ku fahanteen html macnaheedu muxuu yahay haddii lagu weydiiyo inaad si waafiya u sharixi karto waxaa ku xiga waxaan sharixi doonaa marka dhammaan intan aa ku aragtaan qaab dhismeedka ku jira html lineka ugu horeeya oo ah angle bracket exclamation mark doc type waa intaa hore html intaas website kasta marka la samaynayo waa muhiim waa lagu bilaabaa halka ugu sarreysa ayaa lagu qoraa lineka ugu sarreeya marka aan isweydiina maxaa looga baahan yahay maxay macno ku fadhidaa ujeeddada laga leeyahay inta hore waa doc type it means document type warqadani ama websitekani nooca uu yahay ama luuqadda lagu sameeyey nooca ay tahay waa html5 and it means it's declaring and defining that the version of this html is 5 waxay qeexaysaa oo caddaynaysaa luuqadda lagu sameeyey websitekani in ay tahay html5 waa just declaration marka la yidhi waxay caddaynaysaa oo qeexaysaa inay html5 tahay luuqadda lagu sameeyey websitekani halka waxaad ka garan kartaa html inay lahayd taariikh hore ay soo martay oo nambaro kala duwan ay lahayd html waxay lahayd html1 html2 html3 4 iyo haddoo 5 la marayo marka html5 ayaa noocaas loo caddeeya loo sheega loo qeexaa waa laga yaabaa inaad isweydiinayso aad tidhaahdo yaa loo caddaynaya yaa loo qeexayaa ma aniga ardayga ah wax baranaya ma qofka web developerka ah yaa loo caddaynaya waxaa loo caddaynaya browserku waa google oo kale websiteka haddii aad rabto inaad la soo baxdo websitekii toos miyaad ula soo bixi kartaa may wey jawaabtu waayo waxaa idiin dhexeeya adiga iyo websiteka waxaa dilaal idin ah oo idin dhexeeya google waa inaad marka hore google intaad furata aad ku qortaa websitekii aad raadinaysay kabacdi buu kuu soo baxaya websiteku taa micnaheeduna waxa weye website google baa wuxuu soo akhriyaya websitekii kabacdi uu kuu soo bandhigaya marka google si uu si saxa kuugu soo bandhigo waa in la fahansiiyaa luuqadda websitekani uu ku samaysan yahay marka horeba inay tahay luuqadda html oo nambarkeeduna 5 yahay si uu si saxa kuugu soo bandhigo tusaale ahaan haddii aad soo qaato book dictionary ah oo Soomaali English ah buuga intaad furin jaldigiisa maxaa ku qoran ama kafarkiisa
Somali English translation ama English Somali translation. buuggani wuxuu isku turjumayaa Soomaali iyo English. buugga intaad furinba waxaad ogaatay buuggani wuxuu isku turjumayaa ama luuqaddu ku saabsan yahay. marka sidaasi si lamid ah intan ugu sarreysa oo doctype HTML5 ka badanka lama qoro, waxay caddaynaysaa oo Google u fududaynaysaa luuqadda website-kan lagu dhisay inay tahay HTML5. marka wax yar bal aan eegno kuwii ka horreeyay qaabkii loo caddayn jiray oo loo declare garan jiray. wax yar waan soo dejinayaa. HTML4 qaabkaasaa loo caddayn jiray. You see how long it is. sida u dheer tahay inta qoraal ku jira ee confusion ku riday qofka dusha lagama qaban karo. kuwii hore saasaa loo caddayn jiray oo loo declare garan jiray. HTML1 iyadana waa la mid saasoo kale u dheeraad oo qoraal fara badan bay ahaan jirtay. haddase maadaama technologygu mar walba wuxuunbuu fududeeyaa oo sii yareeyaa, hadda HTML5 sidana loo caddeeya intaa yar waa angle bracket exclamation mark doctype.html. website-kana kama soo baxda intani laguma arko, hal mar baa la qoraa dasit. marka waxaan filayaa lineka hore waa fahanteen. waxa ku xiga haddana lineka labaad HTML2 HTML haddana HTML baa la soo celiyey. waa laga yaabaa inaad tidhaha Google maxaa dhacay, wax ma fahantid miya? HTML in luuqaddu tahay waa ku caddaynay, maxaa haddana loo soo celiyey HTML? intan waxaa loo soo celiyey it means wixii halkan ka bilaabma HTML ilaa halkan ugu dambeysa oo lineka 9aad ee 9ka ah, wixii intaa u dhaxeeya waa HTML code. ama tusaale kale, tusaalihii buugga aan ku soconay dictionary-ga ahaa. buuggii markaad jaldigiisa ogaatay ama kafarkiisa aad akhriday oo aad ogaatay inuu yahay English iyo Somali, markaad buugga furto still buugga maxaa page-ka ugu horeeya maxaa ku qoran? waa hordhac ama prefix. waa dhowr page hordhac ah oo still ka hadlaya labada luuqadeed oo isku turjumayo. marka HTML iyana waxay u tahay hordhac oo kale, macnaa halkan laga bilaabo ilaa halka u dambeysa wixii u dhaxeeya waa HTML code. marka line-kana waa fahanteen. waxaa kusii xiga headku halkaas uga bilaabmaa, labada calaamadood buu ku bilaabmaa oo aynu nidhi waa muhiim. waa opening tag, waxaanu ku dhammaadaa halkaasuu ku xidhmaa. head waxaa laga wadaa micnaha waad garanaysa waa madax meel ka sarreeyo la taabtaa ma jiro. headka dhexdiisa waxaa gala titleka oo laga wado pagekaaga ama website-kaaga markaad samayso meesha ugu sarreysa waxaa ka soo baxi doona magaca website-kaagu yeelan doona. markaanu gelina magacaad arki doontaan, ama aynu gelinaba imkaba saad u aragto. halkaa dhexdooda haddii aad geliso magacaaga, aniga magacayga waa Kamaal, magacayga aan geliyo. haddii aan idhaahdo safe, marka Ctrl S baad taaban kartaa ama file intaad tagtaad safe odhan kartaa. marka wax kastoo halkan aad ka bedesho waxay ku dhacayaan filekeenni seedka ahaa ee aan ku abqaalnay meeshii desktopka inoo yaal, folderka inoogu dhex jiray. marka wax kastoo halkan aad ka bedesho waa inaad safe tidhaahdaa. marka safe garee, wax yar inoo soo deji. marka waxaan tegaynaa folderkii desktopka inoo yaalay ee website-keenna seedkiisu inoo yaalay. fur folderkii, waa kan index, isna 2 jeer kali garee. sidaan sheegnay weli uu maran yahay. hadda laakiin maxaynu soo gelinay? maxaynu ku soo qornay code editor-keenii magacaygaan soo geliyay Kamaal oo halkii titleka. marka geeskaas haddaad arki karto ama isugaan idin calaamadiyo, geeskaas magacayga ka muuqda, magacii aan soo geliyey code editor-ka aan kusoo qoray halkii titleka. marka head ama titleka waxaa laga wadaa pagekaaga ama website-kaaga markaad samayso meesha ugu sarreysa waxaa gelaya magaca website-kaaga ama loogadaadaad gelin kartaa. aan furo Google oo kale. Google haddaan furo waxay raali noqda isaan idiin tuso laftiisa Google-na inuu leeyahay arrinkan. Google haddaad aragta asna geeskaas left tab cornerka asagana calaamadiisa saaran ama magaciisii oo aragtaan halka geeska. marka head iyo title waxay xambaarsan yihiin oo mas-uul ka yihiin magacaara kor ka soo baxaya. that's why head loo yidhi, oo meel ka sarreysa, madax meel ka sarreyso la taabtaa ma jirto. marka waa pageka ama website-ka halka ugu sarreysa. titlekuna waa magacaa ka soo muuqanaya.
macnaha ay xambaarsan waa intaas marka aan iska xidha kan code editorkeena aan ku noqono marka headka iyo titleka waxaan filaya inaad fahanteen waxaa ku xiga body bodygu waxa weeye websiteka calooshiisii oo kale markaad websiteka gasho wixii aad aragto masalan qoraallo ah ama warar ah wixii sawirro ah wixii video ah adiga qofka userka ah ee websiteka akhrisanaya wax alla wixii uu arki karo waxay galaan oo la geliyaa halkan bodyga aan idin xasuusiya mar labaad iyo mar saddexaad ha ilaawin wax wale waxay ku bilaabayaan opening tag oo bodyga haddaad aragto labada calaamadood buu ku bilaabmayaa oo waxa la yidhaha angle brackets ama less than or greater xisaab ahaan waxaan ku dhamaadaa calaamadahaas oo angle bracket forward slash iyo angle bracketkaas marka kuwa mar walba muhiim ayaan laga tegin marka bodyga oo halka ka bilaabma halkana ku dhammaanaya dhexdiisa waxaa gala wax alla wixii websiteka aad ku aragto dadka caadiga ee websiteka akhrisanaya ee arkaan masalan qoraalada oo kale ah sawirada ah fideoyada oo kale marka bodyguna wuxuu xambaarsan yahay wax alla wixii qofku arki karo ee dadka u muuqda bodygana waan fahnay insha allah laba waxba bodyga gala waan gelin doonaa waxar ka bacdi html baa u dambaysa htmlna waxay xidhaysaa waxaynu nidhi wax walba waxay ku bilaabmaan opening tag waxaanay ku dhammaadaan closing tag also waxaan nidhi htmlkii ugu horreeyay wuxuu ahaa hordhac ayuu u ahaa websiteka kana wuxuu noqonayaa kii hore hordhac buu ahaa prefix kana waxaan nidhi waa websiteka halkuu ku xidhmayey buuggu markuu dhammaado maxaa la sameeyaa xagga ugu dambaysa waxbaa pages baa loo dambaysiiyaa ama mahadnaq ama wuxuun oo pageka buugga ku xidhmo taasna waa sidaasoo kale u tahay htmlka marka waxaan ku dareynaa halkaas bodyga waxaa la geliya laba waxoo kale masalan waxa la yidhaahdo h1 marka calaamadii aanu qorna shift iyo angle bracket haddaad qorto calaamadaas oo aad taabato h1 inta kale asaa kuu soo saaraya marka enter dheh marka h1 halkan ay ka bilaabaysa halkanna way ku xidhmaysaa wax alla wixii loo baahda dhexdooda la geliyaa marka h1 maxay tahay hta waxaa loo soo gaabiyey heading 1 macna ciwaankii ugu weynaa headingka ah headingka waa taqaanaan ciwaankii koobaad ee ugu weynaa macna ciwaanka koobaad ciwaanada kale wuu ka far waaweyn yahay si uu uga muuqdo waraaqihii caadiga aynu qori jirnay maxaan samayn jirnay ujeedan odhan jirnay ujeedada far waaweyn baa laga dhigi jiray marka waa sidii oo kale ciwaanka aad rabto websitekaaga inuu ka soo muuqdo oo ka duwanaado qoraalada kale uu noqdo far waaweyn waxaa loo isticmaalaa h1 h1na waxay leedahay oo gaadha ilaa 6 oo h1 h2 h3 h4 h5 h6 marka h1 baa ugu waaweyn 2 haddaan isticmaalo wuu sii yaraanaya 3 wuu sii yaraanaya markastoo numberku weynaado qoraalkuna wuu sii yaraanaya marka iyadana aan isticmaalna saa u aragtaan waxaanu gelinaynaa qoraalkii ugu horreeyey ee websitekeenna waxaanu ku bilaabaynaa heading ciwaan far waaweyna marka aan idhaahdo masalan hello wall oo kale waan raba ciwaankii ugu horreeyey inuu noqdo ama farta ugu waaweyn hello wall waxaad doontaad ka dhigi kartaa salaamu calaykum waad ka dhigi kartaa wax alla waxaad jeceshay I love you waad ka dhigan kartaa hello wall hello wall baan geliyey labada dhexdooda marka safe dheh control s ama file tag oo safe dheh wax kastoo halkan aad qorto aad bedesho sida websiteka uga soo baxaan waa inaad safe garaysaa marka websitekeenu teganaa already wuu inoo furan yahay waa laga yaabaa inaad isweydiiso tidhaho oo hello wallkii aan kusoo qoray kamay soo bixin maxaa dhacay ha ilaawin number 1 xagga inaad kasoo safe garaysay halkan markaad timaado refresh waa inaad tidhahdaa si wixii cusub aad xaggan kasoo bedeshay xaggan ay uga soo baxaan refresh waxaa la taabtaa calaamada ee circleka oo kale ah waa calaamadaasaad taabanaysaa ama waxaad taaban kartaa F5 oo keyboardkaaga you see hadda waa inoo soo gashay hello world okay taa waan fahnay waa ciwaankii waxaanu isticmaalay h1 aan ku noqdo code editorkeennii waxaanu isticmaalay h1 ayaa ka dhigtay ciwaanka ugu waaweyn inuu far waaweyn noqdo halkan aan tago ugu dambeeya then enter dheh si spaceka hoose aad u tagto hadda waxaan isticmaalaynaa h2 si iyadana u aragno qoraalka sida u yareynayso ama sida xajmigeedu u noqonayo marka taabo shift iyo angle bracket h2 then enter dheh inta kalaasaa kuugu daraya maxaanu nidhi wax walba waxay ku furmaan opening tag waxaana ku dhammaadaan closing tag dhexdoodaa la geliya wixii loo baahan yahay marka hello world bayn ku celinaynaa
hello wall save dheh control s ama file and save ay websitekeena ku noqo hello wall tii horun bay noogu jirta marka xasuusna waa 11 refresh inaad tidhaahdo ama F5 ay hello wall oo ah H2 iyana waa aragtaan way kasii yar tahay aan ku noqdo code editorkeeni haddana halka u dambaysa taga enter dheh haddana waxaan qoraynaa angle bracket H3 enter dheh ama click reh haddana hello wall save dheh control s ama file save and then websitekeena ku noqo refresh dheh H3 na waa aragteen iyadana waa kasii yar tahay marka macnaha ay xambaarsanta waxa weeye ciwaanka ugu horeeya aad rabto titleka inuu ka weynaado oo ka muuqdo websiteka kuwa kale oo dhan waxaad u isticmaalaysaa H1 ciwaanka ku xiga ama sub headingka ama subtitleka waxaad ka dhigaysaa H2 sidoo kale H3 usually lama wada isticmaalo H4 iyo H5 iyo 6 farto aad bay usii yaryaraanaysaa marka inta badan waxaa la isticmaalaa H1 ama H2 ilaa 3 laga yaaba in la isticmaalo marka macnahay xambaarsan yihiin waa intaas code editorkeena aan ku noqono marka waxaanu idhi H1 ilaa 6 bay gaadhaa insha allah inta kale adaan kaaga tegayaa oo H1 H2 H3 waan ku tusay marka H4 H5 iyo H6 adigu geli insha allah ku noqoto exercise halka markaynu marayno waxaan rabaa websitekeena in aan gelino sawir aynu gashano oo sawirkaaga aad geliso you see how exciting it is sawirkaaga inaad websitekaaga soo geliso oo aad adduunyada ku aragto marka waxaanu gelinaynaa sawirkaaga ama sawir baynu gelinaynaa websitekeena marka waxaad tegaysaa websitekaagi tag ujeedada aan u teganaana waxay tahay waxaad go'aansanaysaa marka hore meesha aad rabto sawirka inaad ka geliso way sawirka haddaad sawirun geliso meeshu doona ka soo baxaya laakiin first waa inaad go'aansataa sawirka halkaad ka gelinayso ama halku ka soo baxayo marka waxaan rabaa ciwaanka ugu sarreeya ee hello wall oo kale korkiisa inuu noqdo ama hortiisa marka code editorkeeni aan tago hello wallka ugu horeeyay ee H1 baan isticmaalnay waa tan marka waxaan rabaa inuu sawirka ka koreeyo oo aan halkan taga marka enter dheh si spacekaas inoogu soo baxo marka talaabada ku xigta waxay tahay H1 waynu ogaanay inay tahay qoraalka waaweyn marka la gelinayo la isticmaalaa laakiin sawir marka la gelinayo maxaa la isticmaalaa iyana code u gaar leedahay ama baanad u gaara marka waxaad tegaysaa shift angle bracket maadaama aynu image gelinayno haddii xitaa caqligaaga aad isticmaasho waxaa laga yaabaa inaad tira image baad gelinaysaa xarfa ugu horreeya niyadaada kusoo dhacaya waa image marka image qor oo soo gaagaabi img asagaa kuu soo saara inta kale marka enter dheh marka image marka ama sawir la gelinayo codekana la isticmaalaa intana la isticmaalaa intan macnaheeduna waxa weeye img waxaa loo soo gaabiyey waa image src haddaa idan ila socon aan calaamadiyo img waxaa loo soo gaabiyey waa image src na waxaa loo soo gaabiyey waa source macnaheedu waxa weeye sourceka ama meesha sawirka ka imanayo marka sawirkiisa markaad hesho halkaasaa la geliya labada calaamadood dhexdooda marka imageka laba nooc baa loo geliyaa image local ah oo computerkaaga ku jira iyo image linki leh oo website internetka ku jira marka usually waxaa fudud oo la isticmaalaa sawir ku jira internetka marka sawirka internetka ku jira wuxuu u baahan yahay linkigiisa inaad soo qaado oo halkan aad geliso linkiga maxaynu nidhi waa html inta labada hore oo ht waa hypertext marka linkigaas waa inaynu raadinaa si sawirkeena aynu link ugu sameyno inoo soo deji text editorkeena iyo websitekeenaba ama waxaad tagtaa google tag google markaad tagto waxaad ku qoraysaa waxaan idin tusayaa website waxaa jira host gareeya oo sawirkaaga internetka kuu gelinaya oo kuu haynaya google tag waxaad ku qortaa post image waa post image ama images marka waxaad tegaysaa optionka ugu horeeya post image websiteku markuu kuu soo baxo pagekan ku keenayaa waxaanu isticmaali doonaa 3 option waa 3da option
ka hore waxa weeye waa do not resize my imagekeyga ha ka bedelin sizeka ka kalena waxa weye no expiration macnii sawirkan ha igu jiro intuu doono expiration ma laha marka uma baahnin waxaan u baahannahay sawirka inaynu sizekiisa bedelno waxa laga yaabaa sawirka computerka ku yaala ee aad rabto internetka inuu kuu galo in sizekiisa uu weyn yahay marka optionka waanu bedelaynaa calaamadda yare drop down maniga ku dhufo marka sizes badan baa ku jira waxaynu dooranaynaa sizeka aan ugu macquulsan ama websiteka munaasibka ku noqon kara marka waxaad tegaysaa waxaad doorataa optionkaas ah 320 marka kaa dooro sorry 320 for website and email optionkaas ayaan dooranay qaybta ka hooseyso ah no expiration haddii aad rabto sawirkaaga aanad danka lahayn inuu iskaga sii jira aad rabto websiteka waad ku dhaafi kartaa no expiration laakiin haddii aad rabto waxaad odhan kartaa remove after 1 day hal maalin ka bacdi ka saar marka kaa doonto dooro waxaad tegaysaa choose image si aad u tagto meeshuu imageku ka yaalo computerkaaga marka imagekan oo kale aan rabaa inaan sawirkeyga link igu sameeyo websitekani marka kan dooro open deh markaad ku upload garayso wuxuu ku siinayaa linkigii sawirka oo optionno badana marka waxaan qaadanaynaa optionka labaad waa meesha ay ku qoran tahay direct link waa ka labaad kor markaad kasoo degto direct link linkigaas highlight garee oo right click c oo copy deh ama hortiisa haddaad aragto copy waa odhan kartaa marka waa ka dhammaanay websitekan inaga soo xidh waxaan tegaynaa code editorkeenii waa kana marka halkii aan rabnay inaan sawirka gelino sourceka sawirku halkanaa la gelinayaa halkan ku base garee control v ama right click c oo baste deh then waxaad taabanaysaa save garee control s ama file and then save waa idinku celcelinaya insha allah inaad xasuusiyo mar walba wixii halkan aad ka bedesho waa inaad save garaysaa websitekaaga markaad tagtana waa inaad refresh tidhahdaa marka websitekeena aan tagna bal sawirkeenu ka soo baxaya in kale waa aragtaa sawirka iskama soo baxay refresh waa inaan idhaahno maasha allah sawirkaaga waxaan filaya inuu ka soo baxay aniga keyga uu ka soo baxay waana sideen rabnay iyo meeshii aan rabnay sawirku inuu ka soo baxo okay ku noqono code editorkeenii waa websitekaagii waad gelisay sawirkii ciwaankii aad rabtayna waad fahantay khasab ma inaad ku celcelisay hello wall waxaan rabay inaad fahanto oon h1 h2 ilaa h6 waxay qabtaan okay sawirkiina waan baranay sida loo geliyo code editorkeena aan ku noqono waxaan rabaa websitekii maadaamaan ciwaan baan u sameeyey ciwaan weyn baan geliyey sawirkaygana wuu ka soo muuqday laakiin websiteka intiisa kale way qaawantay wuu maran yahay waxaa laga yaaba websiteka aad samaynaysa inaad ugu tala gashay war inaad soo geliso maadaamanu Soomaali nahay warjaceylka waa laynagu xantaa marka waxaan rabaa inaan xoogaa yaroo wara geliyo ama waxaad doonayso marka si aad qoraal u geliso websiteka qoraalku wuxuu galaa qaybta bodiga horeen u nidhi wax alla wixii ka soo baxa websiteka bodigay gelayaan marka bodiga halkan uu ka bilaabmaya halkan uu ku dhammaadaa wax yar aan idin yar kala fogeeyo saa u kala fahantaan bodiga iyo marka bodiga waxa gala ciwaanada waxa la wixii qoraala sawirada kale waxa la wixii websiteka ka soo baxa marka insha Allah waxaan rabnaa qoraal websitekeena inaan gelino waxa taabataa waa shift iyo angle bracket qoraal waxa la yiraahdaa paragraph waa garanaysaan waa hadalka macnaha sameeya ee full stop loo isticmaali jiray marka waxa la wixii qoraal waxaad u isticmaalaysaa paragraph b taabo waa b da kulul labada marka inta kale asaa ku soo saaraya enter deh halka dhexdoodan ku qorina marka wixii qoraal aynu rabnay websitekeena oo gelina marka waxa doontaad ku qori kartaa مثلا aan idhaahdo feel free waxa doonto qor waxaan idhaahdo maanta oo taariikhdu ay tahay bishii koobaad 14keedii waa wadamadan qurbaha wadankiina taariikhda waxoogaa 8 hours ina naga horeysan baa laga yaaba 9 saacadood bisha koobaad 14keedii 2021 waxaan bilaabay barashada
dulqaata waxay intaan qorayo barashada html waxaanan ku dhisay websitekaygii ugu horreeyey marka insha allah websiteka dhisidiisa ha ka baqina waxaanu samaynaa waa qoraalkii buugga caadiga aanu qori jirnay qalinkii buugga aanu isku qori jirnay websitekaygii ugu horreeyey waxaan rajaynayaa inaanan ka caajisin oo aan sii wato waxbarashadayda ilaa aan ka noqdo web developer okay qoraalkaasaan qoraan rabaa websitekayga inuu ka soo baxo si qoraal aan u geliyana maxaan isticmaalay waa b oo ku bilaabmaysa opening tag kuna dhammaanaysa closing tag labada b dhexdoodaan geliyey waa bdaas iyo bdan qoraalka kala fogeeyey iminka then si websitekayga uga soo baxo save gare control s ama file save websitekeenay tag refresh dheh waa ujeedaan qoraalkii aan soo gelin inuu halka inooga soo baxay sidaynu rabnay u soo baxay iyo meeshaynu rabnay okay taana waa fahanteen baan u malaynaya sida qoraal loo geliyo websiteka okay waxaa inoo dhiman markaas waa laga yaabaa in dadka qaar aad rabto markay akhristaan oo aad tidhaahdo maantoo taariikhdu cankaa tahay waxaan bilaabay html inaan barto websitekayga horena inaan ku dhisay waxaa laga yaabaa dadka qaar inay isweydiiyaan talo xaguu ka bartay adiguna aad rabtay inaad u sheegto dadka meeshaad ka baratay ama videogaad ka baratay masalan videogan ama channelkeenan oo kale inaad u tilmaanto dadka marka waxaan rabnaa inaan gelino video linkigiisii aan ku noqono code editorkeenii aan ku daro waxaan rabaa inaan idhaahdo ilaa aan ka noqdo web developer waxaanan ka bartay aqoontan channelkan soo socda channelkan youtube-ka ah channelkan youtube-ka ku jira ama waxaa ohan karta ama videogan marka waxaan rabnaa videogii halkan ma rabna inaan wada gelino waxaan rabnaa inaan u sameyno linki qofku markuu ku dhufto geenaya videogii geenaya marka daminis inaan soo socda inaad baranayso sida linki loo geliyo first waxaad go'aansanaysaa meesha linkiga aad gelinayso kadib waxaad isweydiinaysaa linki marka la gelinayo maxaa codeka html loo isticmaala muxuu yahay marka waxaan go'aansaday inaan geliyo halkaa ka dambeysa videogan marka waxay noqonaysaa xaggan aan hoostiisa geliyo weliba halkan aan raba inaan geliyo marka linki marka la gelinayo taaba shifty angle bracket then waxaad qoraysaa e markaad qorto inta kale asaa kuugu daraya enter dheh marka codeka la isticmaalo marka linki la gelinayo ama baanada lagu xidho linkiga marka la gelinayo waa intan waa href equals sidaan markii hore sawirkaanu gelinin oo kale halka waxaa la geliyaa linkiga aad doonaysa marka linkiga waan u baahanay masalan youtube-ka haddaan tago waxaan ka soo qaadan karaa linkigaan rabay aan tagaba channelka waxay raali noqda youtube baan tegey waxaan ku qoray channelkeena magaciisaan ku qoray w3 tag marka waa kan ku dhufa videogan markuu soo baxa marka linkigiisaan soo qaadanaya waa linki waa qaybtaa sare xagga sare taala ay ugu sarreysa ciwaanka videoga qaybtaa sare sorry marka intana kobiyenaya kobide linkiga isoo qaad marka iska xidho ma baahni marka code editorkeeni tag halkan ay marka linkiga gelinayna linkiga markaanu gelino halkan wuxuu ku bilaabmaya marka linkigu waa angle bracket halkanna wuu ku xidhmay haddaa aragtaan calaamadda yar waa ku dheeraad kuwa kale may lahayn labada calaamado dhexdooda weliba bannaantay halkan waxaa la geliyaa
linkiga aad gelisay magaciisa micnihiisa muxuu yahay linkigu muxuu xambaarsan yahay waxaanay ka caawisaa search engine-ka aad ugu fiican tahay marka masalan aan geliyo halkan waxaan gelinayaa videoga linkigiisa markaan soo geliyay halkan waxaan gelinayaa videogan wuxuu ku saabsan yahay oo kale web development ama html badhe ama html ma hubo inuu videogaas inaan html ka hadlayay laakiin ujeedada inaa fahantaan u baraba marka save dheh control s ama file save website-keennii tag refresh dheh marka waa aragtaan hoos maxaa ka soo baxay waa linki waxa ku qoran html xariijin baa hoosta ka marsan qoraalada kalena wuu ka duwan yahay haddeer maxaynu nidhi ht waxa weeye waa hypertext waa qoraallo badan ama video ama sawiro wax inta hal meel isugu geeyey loo sameeyey linkigaasoo ay kaa xigto inaad click garayso ama haddaad telefoon isticmaalayso aad press garayso muxuuna samaynayaa linkigu wuxuu ku geynayaa page kale ama meel kale marka halkan haddii aan click garayo iminka wuxuu i geynayaa videogii ama youtube-kii aan click garayno waa aragtaan videogii wuu i geeyey youtube-kii aan iska soo xidho website-kii inaan ku noqdo xer iga raal noqdo gacanta iga dhacda waan xidhay aan soo furo waxbay nagama lumayaan wax kasta halkii bay inoogu safe garoynaya haddaad safe garaysa okay waa aragtaan marka linkiga ujeeddada laga leeya waa intaas waa in qofku markuu qoraalkan uu dhammaado oo aad rabto page kale inuu u wareego waa inaad link siisaa linkiga markuu ku dhufto wuxuu ku geynayaa page kale ama website kale ama video linkigiisa waxaan filayaa linkigan inaad fahanteen sida loo geliyo insha allah mar raba videogan aad idinku sii dheeraado insha allah waxaanu ka dhigi doonaa marka hore waxaan ku fikiraya hal video inaan ka dhigo html-ka ku dhameeyo laakiin kind of wax nagu caajisa laga yaabaa laakiin waxaanu ka dhigaynaa marba waxaanu ku dari doonaa waxaanu ka dhigi doonaa course series oo isku xigxigta oo nambara leh marka insha allah videogan halkaasaan ku joojinaa wixii kale website-ka lagu sameeyo dhan waan ku xigsiin doonaa insha allah I hope inay tahay course interesting ah insha allah channelkuna wuu cusub yahay la share garee dhammaanba ciddii danaynaysa waana ku mahadsantahay for watching ama ku xidhnaanta aad ku xidhantahay channelka aad baan idin salaamaya asalaamu allahu calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatuh also waxaad samayn kartaa waa iska xidhi kartaa wax walba markaad safe tidhaahdo ha ka warwarin haddaad safe garayso wax walba beri halkiibaad ka bilaabi kartaa haddii aan xidho imika kan wax o dhan waan iska wada xidhi karaa marka ha ka warwarin beri dib markaad usoo furto wax walba halkiiba kuu yaalaan halkiibayna kuu marayaan ha ilaawan inaad safe tidhaahdo control s ama file safe asalaamu allahu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh